الرحيم halkan waxa ka hadlaysa adeega Yaasin Caraale Axmed waxaan u sheegayaa dadweynaha adduunka daafiisiyada caladiisa jooga albaab kasto reer Sheekha waan garaacay bay tiri intaas oo reer Sheekha ayaa maanta galabta halka taagan albaab ay garaacday maxkamadda Hargeysa ka tiri albaab ay garaacday oo reer Sheekha oo ku yireen ay lagu ma dhalin been bay ku sheegtay maxkamadda ay leedahay adeeg mayman halay soo qabto de waxna ma dirin waxna ma xadin nin durbaan qaatay ilaaq dalbay marka horeba daaniga ay walaashana laga qaado dhiigiyadeen dhiiga hayda sida imikana aan halkii baan taaganahay dhiigii hayda sidaha diyaar baan u ahay hada ma garatay anu qof Allah raxmaanka ku xidhan baanahay يا الله الرحمن كحقنا وان كنت أجناي حقي والد كيبانا رادينيا قاري نقطنا حق بان كنت أجناي نمعهرنا وان وقول إسلامك أدون كدافي سيد على دي سوحي ومتشوكتي أنا يراعدي حق يجوشنا أنا يسوع ينسى حدي الله كديجو سيد نمعها قصة مرتق دمان ددوينها هير شيخ هوين كار هير شيخ هالكا فرديا وحا أي قلبت يسوق صباحين وأي هالكا يسوق يمادين dad qadiima oo qadiim sheekh ku ah oo ku culus oo la yiraaho reer Yaasiin Caraale ilma Caraale yibir oo nimca Yaasiin Caraale iyo adeega Yaasiin Caraale oo ay adeegi naga dul oyday oo ay leedahay walaashay waxay tiri Caasha Diiriye ima dhalin Caasha Diiriye Axmed iyo Yaasiin Caraale yibir halkan waxa maanta aanu ku wadnaa goob joogii dhalashadii nimca Yaasiin Caraale qaafa Maxamed Samakaab oo arkaysaan da'deeda iyo wajigeeda ay ag fadhida ayaa ugu horeysa umushii ay ku booqatay Caasha Yaasiin anagoo biyo loo shubayo ayaa dumari yimaadeen waa yidhaahdeen waxa uu mushay Caasha Diiriye Samatar wax loogu qasaaray baa la waayay biyihii baan u kaxeeya markii aanu qadooyinkii kartanaanu u tagnay waxayna tidhi يا عاشا يسكوران وحين تيدي أو ينمع إلهي ما كتير ونمع عندنا وانفول بدين تيرا نمع هو يدا حنقرنا يا يدا وصل احتراء أما أفرتي سنة وقصي وهو يدات حنبارته شارنا وانو هينون يربين سوتشي وأيداد هينيسو وأيسيتو هيانا نقرنا وحوي أديك ياسين ينمع ياسين يعول ياسين ولا لا هاي بهود هالكاس برها وقلت متري عرالة يبر بوها ونن عانو لا يقانا بوها وعان لو يقانا بوها صدح عرونا صدح عرو dad intay kala dhixiyeen isku dhalashay xigay hay'adon gabadhaas waa bay qaadi jirtay walaasha dabtay ku hayn jirtay markay shaqaysay way ogeyd adeegi annaguna dad saaxiiba baan ahayn nimca Yaasiin oo isku wanaagsan baan ahayn reerkooda way ku faani jirtay qabiilkooda way ku faani jirtay kamay xanaaqi jirin qabiil kale hadad ku sheegto nimca Yaasiin waxay oran jirtay maxaad yeesaysaa reerka jiray aan jiray baan ka dhistay muslimka baan ka dhashay maxaad yeesaysaa maxaad dhaantay bay oran jirtay haddaba nimca Yaasiin malaade waa la meedo waxaan u malaynayaa hooyadeedii aabeed wax adduunka ka jeclaa lama ogeyn yana way jeclaaye waxaan nimca Yaasiin maydhay ay u tiri Yaasiin iyo Caashimay dhalin ta kale ee labaad beenta kale sheegtay tiri sheekh baan albaab kasta garaacayo dadkii qof isheega waan waayay nimcooy ilaahay u soo noqo oo waalidka u soo noqo oo dadkii ku garanayay waa kuwa cadeeyay imka maxaan ku dhahay tii biyaha lagaaga soo qaaday biyihii maxaan ku dhahay dararta lagu maydhaayay waa taas way nool yihiin in kala badanna way nool yihiin shaashada la dhex qaadayaan nimcooy ilaahay toobadkeena waalidka u soo noqo ka istaghfirlaysa dambiga aad gashay anigu inuu baan odhanaya waxa weeye nimca Yaasiin annagu dadkii dad ugu xigay baan ahayn albaabadan ay leedahay waan garaacayna nimco been bay sheegaysaa may garaacina naba noomaadima miyaad noo timi nimco dadkii dadku ugu xigaanahay miyaad noo timi Cadar Maxamed cilmi baan ahay noomanaadiman been baad sheegaysaa bisinka qabso ilaahay ka yaab kan waxaanu ku cadaynaynaa shir saxaafadeedkan ku qabanay nimca Yaasiin Caraale Axmed oo gabadh deegaanka sheekh u dhalatay oo nu aad u jecelay marka hore nimcay waanu ku salaameynaa waanu ku jecelay nimcay maantana waanu ku jecelahay waxa weeye nin baa yidhi abtirsiima ma gurto Salebaan Arab weeye ina Yaasiin Caraale Axmed baa aad tahay Caasha Diiriye Samatar baa ku dhashay nimcay dadkii waaweynaa iyo dadkii maalimka qadiimiga ahaa intiiba waa kuwaasoo way marag fureen xabiibo jaamac cilmi oo iminka Hargeysa joogtood garanaysa maalintii aad timi ee sheekh aad timi dawaad ogay markaad oyday ay ku lahayd nimcooy ehel baynu nahay akhwaan gaaraynu nahay
ardaagii hooyada anaa kuu sii fadhiyey haddaan lagu soo dhaweey miyaa lagu dhaafaya fargal dahabaad farxaddii ku bixisa nimcooy waanu ku jecel lahay marraa waaxid noo soo noqo baanu ku leenahay walaashaana ha ka oohinin noo soo noqo reer sheekh aad bay kuu jecel yihiin nimcooy waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waan yaabanahay yaab ayaan ku maqanahay waxaan la yaabanahay waxaan ahay anigu ardaydii nimco yaasiin ay soo barbaarisay ee ay iskuulka u dhigi jirtay nimcooy weli waxaana lilaaway sixii sidaa intuu u dheeraa dabadu saa u soo qalloocay ayaan kugu xusuustaa wanaagaagii baan kugu xusuustaa qofan jecelay baad ahay qof wanaagsan baad ahay qof rixina baad ahay anigu mar walba adeega waxaan ku dhahaa nimco malaa si kale noqoto dadka yaaban baanay waayo wanaagaagii ma garanaysaa markii aad na bari jirtay waxa kacaankaanu ahayn eed heesaa na bari jirtay ma xusuusataa eed heesihii aad na bari jirtay sida wanaagsan sida jacaylkaad noo qabtay wanaagaad magaalada u qabtay jacaylkii laguu qabay ma tihid gabadh dhalashadeeda dafirtaa waxaan ku leenahay ilaahay ka baqo walaasha adeega xaq bay ku taagantay anigu imika gabigayguba saasaan u galiiliyoonaya waxaan la yaabanahay oo yaaban ugu maqanahay nimcay waxa ku bedelay ilaahay ka baqo soo noqo waa lagu jecel yahay qofku wuu qaldamaa bini'aadankii waad qaldantay shaydaanka iska naaro shiikh noogu kaalay gamca furan baan kugu soo dhawaynaynaa sidii aan kugu soo dhawayn jiraan kugu soo dhawaynaynaa soo dhawow nimcooy waanu muraaqoonaynaa nafti baan hayso waa yaabanay nimco yaasiin hooyaday saaxiibadeed bay ahayd qofaan garanayaa bay ahayd ku garaadsaday bay ahayd ku caqliyaystay bay ahayd idaadahayn jirtay bay ahayd hooyadayna la saaxiib ahayd nimco yaasiin ilaaheedii abuurtay ha ka baqato oo ha u soo noqoto walaasheed iyo waalidkeeday ceebaysayba ha u soo noqoto anigu ina yar baan ahaa iyaday kaxaysan jirtay waa ta adeegeen 5 tallaabaan isu jiraa labada iyada guri dadkana way noogu jeclayd iyadana waa nagu jeclayd yaasiin caraala dhalay yaasiin caraala axmed baa dhalay caasha diiriye samatar baa dhashay dad taaro helabaanu ahayn habeenkana leeriyay riwaad ii kaxaysato aqalkoodaan seexanayay yaasiin iyo caasha dhalay inay gaftana xaq ma aha awowgay xaaji jaamac iyo aabaheed awowgayna dhuxushuu miisi jiray maxaadadu iibin jiray aabaheedna biruhu tumi jiray iyaalka marka noo beysteenka ka doonana waan ka soo furan jiray nimco anigu si aan ummadda kaleba u garanayn baan u garanay dadka waaweyn mooye dadka yaryar nimco walaashayabay ahayd walaasheed baanu la hadlaynaa walaasheed ay dafiraysay ooyeysa habeen iyo maalinba ooyeyso nimco ha u soo noqoto walaasheed iyo aabaheed iyo hooyadeeda qabriga ka kicinayso ay tiri imabay dhalinay u xambaarisay nashaxadda nimco ay ka soo noqo walaalo waadiga cabdiraxmaan cabdi maalintii u dambeysay ku yidhi adduunyada inanta ayara gaasira joog waan jecelay cabdiraxmaan oo ma nooshahay waxa weeye nimcooy ummadu waa wada caynka qof waliba qofkii u yaqaanay wuu u yeedhaya na walaal toobadkeen oo ilaahay u toobadkeen oo islaamka u toobadkeen oo walaasha u toobadkeen oo walaasha oo inta aad ka hoysatay imabay dhalin reeraan ku dhalin dalbatay nimco waa macallimadeedii waana gabadhii ugu horreysay ee iskuulka uulada ay qortay standarwankaydii nimco yaasiin caraale aad buu u jeclaa break timeka maalmaha ka mida waxay tidhi horena waanu sheegay ordayad iyo saynab cali xuseen oo wada fadhiya iskuulka qasabka hortiisa ay tiri ord saytuun ii doon oo dhidu weeraxba xataa saytuunkii daray soo dhiib waa soo qaaday nimco gabadhii igu tidhi bay ahayd naa magacaa musaan faadima sahraa misay tihi kala reeb labada magac oo miduun la bax nimcooy shaydaanka iska naar bisinka qabso awliya ilaahay awliyata saalixiina ayaa ku dhashay yaasiin caraale mu'min buu ahaa umana qardoobo loomana quuri kara yaasiin caraale in la yidhaahdo tuug buu ahay wax buu soo xab nimcooy 80 jir baa tahay cimri tagayna ceeb laguma sagootiyo anigood wiiladay qortay ayaa 50 sannadood madaxa la galay adiguna hadalkaaga badaa nimcooy way joogaan ilmo kaahin faras way joogaan ilmo liibaan yare way joogaan ilmo yaasiin yare way joogaan asxaabtii sheekh oo dhami bal cidaad u timi ee ku tidhi nimco garan mayna maalintay dhalatay hal hele sheekhkeen dawladda Soomaaliland waxaan leenahay maxkamadaasi inantaa dhiganayga waa u diyaar maalinta shabcaan maanta waa 30 maalinta bisha ramadaan dhamaatay 6 shawaalka laga soo noqdo mawduucu uu daayo adeega yaasiin anagoo galbinayna ayaanu maxkamadda keenaynaa nimco horta diyaar garowdo waa ta koobaad sheekh way ka go'an tahay taasi waa ta labaad nimco yaasiin waxaan u sheegaynaa waxay tidhi waa loo yeeray haddaad bajad iyo lacag isticmaalayso ilaahay wajgiisa ayaa adeeg isticmaalaysa annagaana garab taagan mana la waayayo xaqa ilaahay dulmiga ma qaado xaquna wax qarsooma ma aha nimcooy haddaan yaasiin caraala ku dhalina
halkaasaad ka bixiyo waa lagaa waayi dawladdana waxaanu leenahay labadaa ruuxee kala laalaada ha la kala furto oo dawladdu cadaaladda ha geyso haw kala qaada dhiigga deedna nimco qoladay sheegaysa ha noqoto markaasaanu isu leenahay